بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومركل إياه برنامج كيني بدامية أو عاد كلا ساعتنا channel كان السمود أنه هضبة عن سوق عدنا موضوعي وكلا دوان أو عن سلنا هاي إني فائدة بدن أي كهل دوران تذكر نجو حران إسلام رهان تانا كليين تجنوا حديات كم ده هيد تذكر صاحب هذا channel كان السمود waxaan idinka codsanaynaa inaad si share gareysaan muuqaalkan haddii aadan ka mid ahayna sidaad uga mid noqotid subscribe-ka si taabo si markaas uu ku soo gaaro muuqaal kasta ama program kasta oo aan soo dhigno si aad qofka ugu horeeya helana si aad u noqoto mawduucan ayaa waxa uu ka yimid dad ka mid ah daawadayaasheena oo markaas ku xiran channel-keena idinkana sidoo kale haddii uu jiro mawduuc markaas aad isleedihiin waxa loo baahan yahay in la bidhaamiyo noo soo dira waynu bidhaamin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo sidoo wad ogsoonahay horta sayga waxyaabaha uu qabanayo xaaskiisa kaliya kuma eka waxyaabaha aan ka qabanayno gacmaha ama afka ama jirka intiisa kalaba waxa jira waxyaabo badan oo fudud oo markaas u baahan in la sameeyo hadii la sameeyana oo xiriirkaasi uu noqonayo xiriir aad u macaan oo meeshan iimaanaysa cilaaqa xamiima oo halkaasina laga sii ambaqaado safarka nolosha lamaanaha aadka u qurxoon oo ku dhisan kalgacaylka iyo romantiga waayo qof walba wax uu raadiyaa inuu helo nolol romantic ah nolol jacayl ka buuxa nolol degan nolol isfaham ku salaysan nolol kalsooni ka buuxdo nolol naxariis ka buuxdo nolol ixtiraam iyo ismaqal iyo isdhageysi ka buuxo nolol wada tashi iyo wax wada qabsi ka buuxo ay qof walba uu ku taamaya inuu helo qof walbana wax uu mar walba niyada ku haya inuu ku guuleysto xiriirkiisa kala dhaxeeya xaaskiisa ama saygeeda sidaas darteed marka waxaan xooga saareynaa marka oo aan iftiiminaynaa ama aan bidhaaminaynaaba kuna soo qaadanaynaa barnaamijkan bidhaamiye toddobadan sir oo markaas aan isleenahay wax weyn ay ka bedeli doontaa nolosha lamaanaha waayo aad iyo aad ay muhiim u tahay labada qofood oo lamaanaha isu ah inay isfahmaan wax badanna ay wada qabsadaan wax badanna ay isla meel dhigaan qodobka ugu soo horeeya ayaa waxa uu noqon doonaa nadaafadda already marka nadaafad aan ka hadalno isla markii waxa niyadaada ku soo degdegaya waxa qalbigaaga ku soo degdegaya ku soo dhacaya qubayska nadaafadda ma aha qubayska kaliya waxa jira waxyaabo kale oo u baahan in la iska nadiifiyo tusaale ahaan timaha wajiga ka soo baxa ama timaha in badan kugu baxa timahaasi ayaa waxa laga rabaa inaad iska nadiifisid meesha aad ka yareysid ama aad ka xiirtid timaha ziyaadada ah hadaba meelaha ay ka yimaadaan ayaa waxa kamid ah timaha wajiga ama timaha laabta ka soo baxa timaha laabta ka soo baxa xaasaska qaarkood ma jecla qaarkoodna ma kala jecla laakiin se waxa laga rabaa adiga saygii hadii aad tahay timaha wajigan inaad iska nadiifisid iska yareysid timaha laabtana iska yareysid timaha kilkilooyinkana sidoo kale iyo timaha kale oo hoose hadii marka adiga kaliya xooga aad saartid marka nadaafada jirka yani qubayska oo kale inaad qubaysatid kaliya taas inaf ma aha timaha ziyaadada ah oo aan tirada lahayn ayaa waxa laga rabaa inaad iska nadiifisid ama iska xiirtid ama iska yareysidba taasi waxa ku farxaysa xaaskaaga aad ayna u jeclaysanaysaa inay ka aragto arintaasi hase ahaatee haddii adiga aadan kala jeclaysan marka waxa suurtagal ah xaaskaaga inay ka dhibsato waxyaabahaasi aan soo sheegnay ama timahaasi ziyaadada ah
ee aan soo sheegnay oo haddii ay bataanba foolxumo meesha ka imaanayso. qodobka labaad ayaa waxa uu yahay isku kalsoonaanta. qofka bini aadamka ah ama saygaba, sayga waa inuu ku naaloodaa kalsooni inuu ku qabo nafsadiisa. inaad nafsadaada aad ku kalsoonaatid waxay keenaysaa in ay si weyn inay si weyn ugu riyaaqdo xaaskaaga. qof aan isku kalsoonayn, qofka hadduusan isku kalsoonayn, micnaha caafimaad qabka nafeed ee uu leeyahay mid liita ayuu noqonayaa. waa inaad ku kalsoonaataa awoodahaaga qofeed iyo nafsadba. waa inaad ku kalsoonaataa awooddaada qancineed ee xaaskaaga. haddii ay xaaskaaga kaa aragto inaad isku kalsoon tahay, awooddaadana ay aaminsan tahay, halkaasi waxaa ka siyaadaya riyaaqa xaaskaaga. qof aan isku kalsoonayn nafta laguma aamino. qof aan isku kalsoonayn nolosha laguma aamino. qof aan isku kalsoonayn xiriirkiisa guur wuxuu noqonayaa mid dacfi ku yimaada, ugu dambayntiina meesha uu ku dhammaado. sidaas darteed marka waa muhiim waana lagama maarmaan in kalsoonidaada nafeed ama kalsoonida aad nafsadaada aad ku qabtid inay mar walba ahaato mid top ah, yacni mid heerkeedu sareeyo, marnaba aysan hoos u dhicin. xaaska waxay aad iyo aad ay u jeceshahay, waxay aad iyo aad ugu dadaashaa, waxay aad iyo aad ugu riyaaqdaa sayga nafsadiisa ku kalsoon. waayo taasi waxay keenaysaa marka caafimaad qab nafeed ayay keenaysaa marka. caafimaad qab nafeed marka haddii ay meesha ay timaado, howlaha lagaaga baahan yahay adigana waxaad u gudan doontaa sida loogu talagalay. meesha ugu wanaagsanna waad gaarsiin kartaa markaasi. sidaas darteed marka kalsoonida nafsada waa lagama maarmaan, waxayna ka mid tahay siraha lagu horumarin karo ama kor loogu qaadi karo cilaaqada ka dhaxaysa lamaanaha isqaba ama sayga iyo xaaskaba. qodobka saddexaad aynu diiradda saaraynaa. qodobka saddexaadna waxa uu yahay dhimrinta iyo dareenka jacayl. waa alcadf walxanaan. xaaska aad ayay ugu riyaaqdaa dhimrinta ama cadfigaba iyo dareenka jacayl ee markaasi loo yaqaano alxanaan. haddii aad ku dadaashidna waa laba arrin oo muhiimaddeeda leh oo labada dhinacba faa'iido ugu jirto. xaaska raaxo iyo kalsooni ayay dareentaa marka ay dareento saygeeda dhimrin iyo dareen jacayl oo awooddiisa wata. sidoo kale labada dhinacba, sayga iyo xaaska, dareenkaasi jacayl inay isdhaafsadaan waa wax muhiima, lagama maarmaan ah. kelimado fudud baa allaha ka dhige oo markaasi tilmaamaya dhimrinta iyo dareenka jacaylka. sayga iyo xaaska marka ay guriga wada joogaan ama waddada ay marayaan ama meel kaleba ay joogaan, waxaa wanaagsan kelimaadka ay isticmaalayaan inay ka fiirsadaan, isla mar ahaantaana kaalin weyn ka qaadanaya horumarka iyo kor u qaadidda xiriirka jacayl ee lamaanaha isqaba ka dhaxeeya. macaanto, xabiibti, kelimaad oo fudud oo markaasi furo u noqon kara qalbiga xaaska. dhimrinta iyo dareenka jacayl waa waxyaabaha ay aadka ugu baahan tahay. haddii adiga marka kelimaadkaasi iyo wax la mid ah aad isticmaashid, hadal dabacsan aad isticmaashid, hadal la soo xulay aad isticmaashid, oo aadan xaaskaaga kula hadleen sida dadka bannaanka aad kula hadlaysid oo kale, oo aadan xaaskaaga kula hadlin taagtaag ama hadal adag ama hadal dhaawac leh ama hadal niyad jab keenaya, waxyaabahaas oo dhan waa laga fogeeyaa xaaska.
xaaska waxay u baahan tahay hadallo ka buuxaan dhimrin, hadallo ka buuxaan dareen jecel ayay u baahan tahay. xaaskaaga marka madax aad ka dhunkatid ajar badan ayaad leedahay. haddii garabka aad ka qabsatid sidaas si la mid ah, haddii dhexda aad ka qabsatidna kaba sii fiicanba. dembiyada laga dhaafayaa, ajaraa lagu qorayaa. waxyaabahaas oo dhan marka ajarkaas iyo dembi dhaafkaas iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhiirigelinayaa marka xiriirka jacaylka ama xiriirka lamaanaha ka dhaxeeya oo cadfiga iyo xanaanta ka buuxa in kor loo qaado marka sidaas darteed marka adeega dumarka lagula dhaqmaayo ma wanaagsana, xiriirkaasi meel ma gaarayo. si kastoo maanta ay u xanaaqsan tahay hal kelimad oo macaan ama laba kelimadood oo isdabayaal oo macaan oo qalbigeeda taabanaya haddaad tiraahdid, wixii oo dhanba ama xumaantii ay tabanaysay ama wixii ay dhibsanaysay oo dhanba way ilaawaysaa marka. adiga ayaa lagaa rabaa saygiyow, adaa lagaa rabaa inaad alcadf walxanaan ama dhimrinta iyo dareenka jacayl ee xaaskaaga xoogga mar walba aad saartid, isla mar ahaantaana ku dadaashid. haddii marka adigoo bannaanka jira mashaakil bannaanka uu kugu soo qabsado markaad guriga aad soo gelaysid, mashaakilkaaga albaabka iska soo dhig. guriga mashaakilkaaga hala soo gelin. dadka guriga jooga waxay u baahan yihiin, gaar ahaan xaaskaaga waxay u baahan tahay alxub walxanaan walcadf ayay u baahan tahay marka. haddii markaas intaasi kaa weydo oo adiga mashaakilkii bannaanka yiilay oo gudaha aad keentid marka ama iyadiiba aad ku dabaqdid ama noloshiina aad ku dabaqdaan, halkaas waxaa ka imaanaya marka isfaham waa ayaa ka imaanaya, midka kale inuu dhibsado ayaa ka imaanaya, halkii xiriirka kor loo qaadi lahaa lana horumarin lahaa. sidaas darteed marka arrintaasi ha u daymo la'aanin, waxayna ka mid tahay siraha lagu horumarin karo cilaaqaadka ama xiriirada ka dhaxeeya labada lamaanaha ah ee markaasi isqabta. qodobkaasina wuxuu yahay sixirka jacaylka. haddaba ma taqaanaa sixirka jacaylka maxaase laga wadaa? annaga ma ka hadlayno sixirka dadka isku sixradaan ma ka hadlayno. annaga waxaan ka hadlaynaa xiriirka ka dhaxeeya lamaanayaasha ama lamaanaha isqaba ee guriga wada jooga. jacaylka sixir ayuu wataa, yacni sixirka waxaan ula jeedaa micnaha dareen gooniha ayuu wataa oo qofka si wanaagsan oo xoog badan u soo jiidanaya. sixirka waxbaa lagu soo jiitaa soo maa, jacaylkana wax buu soo jiitaa. sixirka jacaylka waa inaad isticmaashaa marka. haddaba maxaa ka mid ah marka? suuragal ma aha in calaaqada macaan ee ka dhaxaysa lamaanaha isqaba iyada oo aan jirin dareen jacayl oo dhab ah oo labada dhinacba ah. annaga kama hadlayno keliya dareenka iska caadiga ah ama dareenka jacaylka maalinlaha ah oo iska joogtada ah oo labada qabatimay. sixirka jacaylka wuxuu u ziyaadiyaa raaxada labada isqabta. qofka sayga marka uu xaaska u jecel yahay, xaaskana ay saygeeda jeceshahay, horta dareenkaasi qof dhadhamiyey maahane qof kale ma dareemi karo, mana fahmi karo. dhadhanka uu leeyahayna ma ogaan karo. meesha waxaa ka dhalanaya marka xitaa heer wuxuu gaarayaa sayga ama xaaska waxay gaaraysaa in hadalkeeda ay hoos ugu dhigto saygeeda jacayl ay u qabto dartiisa. hadal macaan oo deggan inay kula hadasho, ama isagana hadal macaan oo deggan oo qalba taabasho leh inuu kula hadlo inta guriga la wada joogo. inta guriga la wada jooga marka ama xaaska iyo sayga ay wada joogaan, waxaa wanaagsan inaysan u wada joogin sida dadka caadiga oo kale ah. tusaale ahaan dadka aad la shaqaysidoo kale sidaas la mid ah haddii xaaskaaga aad ula joogtid ma habboona, yani ma qurux badna, macaana ma dareemaysid. waa inaad ka duwanaataa dadka bannaanka sidaad ula joogtay, si ka duwan waa inaad ula joogtaa marka xaaskaaga ama saygaagaba.
meeshaas waxaa la rabaa marka inuu ka abuurmo hadal macaan oo degan jawi macaan oo degan meesha inuu ka abuurmo buuq la'aan wareer la'aan isfaham daro la'aan meesha waxyaabahaas oo dhan meesha inay ka fogaadaan marka sidaas darteed marka sixirka jacaylka waa markii adiga xaaskaaga aad u muujinaysid mar walba inaad jeceshahay inaad u hilowdid inaad xiise badan aad u qabtid in la'aanteeda nolosha dhadhan aysan ku lahaynin dareensii qiimaheeda dareensii makaanadeeda meesha ay la eg tahay adigana sidoo kale inaad saygaaga dareensiisid makaanadiisa iyo qiimihiisa iyo meesha uu ka taagan yahay waxyaabahaas oo dhan marka waxay kaalin mug leh ay ka qaadanayaan sii jiritaanka ballaaran ama sii jiritaanka abid ee xiriirkaasi jacayl ee ka dhaxeeya lamaanaha isqaba noloshana wadaagay haddaba ad adayga fara isku taagtaaga canaanta qaylada buuqa isfaham darada kalsooni la'aanta waxyaabahaasi oo dhan waxaa muhiima inay meesha ay ka baxaan marka mas'uuliyadeedana adiga ayaa iska leh oo sayga ah iyadana intaasay u baahan tahay dareen jaceylay u baahan tahay dhimrin ayay u baahan tahay cadfi iyo xub iyo xanaanay u baahan tahay intaasi markay kaa hesho marka gurigaasi wuxuu ahaanayaa guri ku dhisan wanaag iyo kalgacayl iyo qiime laakiinse intaasi haddii maxay tumaartaan cagsigeeda meesha ay jirto noloshaasi laguma tilmaami karo cilaaqo macaan ma lagu tilmaami karo marka cilaaqadaas waxay noqonaysaa cilaaqo turunturooyinkeeda wata caqabaadkeeda wata dhibaatooyinkeedana wata adiga iyo saygaaga ama adiga iyo xaaskaaga noloshiina labadiina idinka dhaxaysayo khaasay idin tahay waxa idinka dhaxeeya oo wanaag ah oo cishqi ah oo kalgacayl ah oo xub iyo xanaan iyo cadfi ah oo idinka dhaxeeya waxaa la idinka rabaa inuu idinku ekaado noloshiinana ma wanaagsana inaad public aad ka dhigtaan mar walbo adiga publiga aad la soo istaagtid ama dadka hortiisa aad la soo istaagtid marka noloshaada adiga khaaska ku ah ay ahayd inaad guriga aad ku haysid banaanka haddii aad la timaadid waxaad ogaanaysaa inay jiraan dad noloshaada aan ku qanacsanayn ama aan ku faraxsanayn jecelna mar walba inay kaa dhabqiyaan marka waxyaabaha adiga privacyga ku ah privacy ha ku ahaado waxyaabaha publiga ahna publigiisa ha loo daayo in la isku qaso nolosha publiga ah iyo nolosha privacyga ma aha noloshaan adiga gaar ku tahay noloshaana dadweynaha kala dhaxaysaa labada waa inaad kala saartaa marka qodobka shanaad ee sirta nolosha lamaanaha iyo qaabka ay ku horumari kartaba ayaa waxaa ka mid ah in xaaska daacad loo noqdo waa halka inta badan mashaakilka uu ka beermo halkii horumar iyo jacayl wanaagsan iyo jacayl horumar leh iyo jacayl kor u sii soconaya halkii dadaalka lagu bixin lahaa oo daacadara ay timaado cilaaqadaasi hoos ay u sii soconaysaa marka maalinta ka dambaysa hoos ay u sii soconaysaa haddaba isku dayga muujinta jacaylka iyo kalgacaylka dhammaystiran ballanqaadka ah ee lamaanaha isqaba sidoo kale waxa uu siyaadiyaa raaxada xiriirka xaaskana waxay dareemaysaa in saygeeda iyada ay leedahay si buuxdana ay u leedahay saygana sidaas si lamid ah ayuu dareemayaa midaana xiriirka lamaanaha waxay ka yeelaysaa mid aad u wanaagsan oo aad u qurxoon in xaaskaaga daacad aad u noqotid waxay ka mid tahay siraha uu ku horumari karo xiriirka ama cilaaqaadka ka dhaxeeya lamaanaha isqaba in la joogteeyo oo mar walba lagu dadaalo inaan marnaba la khiyaanin xaaska oo wax lagama maarmaan ah lama huraan ah haweenayda khiyaano markay kaa dareento kalsoonideeda way jabtaa
kalsoonidaasna mar labaad inay soo laabato ama sideedii ay ku soo laabato waa habeen xali tagay ma dhacayso marka haddii adiga aad samaysay ballanqaad waa inaad daacad ka noqotaa xiriirkiina jacayl waa inaad daacad ka noqotaa oo aadan marnaba qiyaanin haddii ay wax kugu soo siyaadaan adiga aad is leedahay xiriirkaaga kala dhaxeeya xaaskaaga ayuu gilgilayaa u bandhig u sheeg decisionka ama go'aanka iyadaa iska leh markaasi laakiin markaad wax ka kharisid ama aad khiyaantid ama aad dhagartid ama aad dibindaabiyadaysid ama isdawmarin aad samaysid meesha ma imaanaysa markaa cilaaqa xamiimaha ma imaanayso xiriir aad u sareeyana ma imaanayo kalsoonidiina way lumaysaa cadfigii iyo xanaantii loo baahnaana meesha wuu ka baxayaa iyo wixii markaas la mida haddaba waxaa lagaa rabaa daacadnimada xaaskaaga inaad ku dadaashid saygana xaaskana sidoo kale waxaa laga rabaa daacadnimada saygeeda iyadana inay ku dadaasho waayo midaasi ayaa meel lagu gaaraa guurkaasina wuxuu noqonayaa guur lagu najaxay guurkaas wuxuu noqonayaa guur khayr qaba guurkaas wuxuu noqonayaa guur jacayl ku dhisan guurkaas wuxuu noqonayaa guur loo aayo guurkaas waxa uu noqonayaa guur udgoon badan oo qurux badan oo heerkiisuna sareeyo ayuu markaas noqonayaa qodobka lixaad ayaa wuxuu yahay albaraaca waxa loo yaqaan ama taatiko inta badan ha isku dayin inaad samayso waxyaabaha ay dadka kale sameeyaan oo mar walbana ay sameeyaan iyagana inaad sidooda oo kale aad u samaysid marnaba ha isku dayin hana ka yeelin gurigaaga inuu ahaado isla xaalkii hore ee lagu yaqiinay waxa laga rabaa inaad bedesho xaaladihii hore ee lagu yaqiinay muddo markii ay ka soo wareegtaba adiga oo ka hortagaya in lagugu agcaajiso xiriirkana uu noqdo mid heer sareeya goor walba horta taatikada sayga waxaa loo baahan yahay taatikooyin iyo farsamooyin iyo baraaca markaas isaga laga rabo inuu la soo baxo si reerkiisa si wanaagsan ugu dhaqdo baraacada waxaa ka mid ah waxaan meel ku arkay oo social media ka mid ah qiso yar oo dhex martay say iyo xaaskiisa xaaska ayaa waxay ahayd dhalmo markaas wuxuu yiri orod hooyada iyada waxay tiri hooyo agteeda ayaan rabaa inaan ku soo dhalo inaad ii fasaxid ii ogolaatid isagana wuu ka ogolaaday way baxday marka muddo ayuu u qabtay muddadaasna ku soo loqo ayuu yiri marka iyadoo isaga dhibaysa ama ka raadinaysa shay cayiman ayaa waxay tiri aniga xilligaas ma imaanaye xilli ka fog wax badan ayaan rabaa inaan meesha aan soo joogo sidaas ugu markaas wuxuu yiri waxba naga halaaw maaye horta maxay to maartay soo dhal waqtiga lagu talagalay ilaa xilligaas waaya kadibna gurigaaga imo marka waqtigii la gaaray way dhashay muddadii markii la gaaray ayaa wuxuu isku dayay marka in gurigeedu uu ku soo celiyo markaas iyadana dumar waa iska taqaanaan way ka diiday iyadoo markaas rajaynaysay inuu barbariyo dumarka inta badan in la barbariyo way ka helaan wayna jecel yihiin marka saas darteed marka aniga ma soo baxay tiri isagayna ku dhibaysa markii muddo ay ka maqneed marka ayaa uu intuu yimid wuxuu yiri aniga intii aad maqneed xaas kale ayaan guursaday qaybta sare ayaan dajiyay saas darteed marka waxaad sameynaysaa adiga halkaaga iska joog xilliga doontidna imow waa ka aniga xaaskayga kale ayaan iskala joogayaa markaas arintii qaracan ay ku noqotay way ka naxday oo lama filaanay ku noqotay markaas waxay go'aan ku gaartay in dhaqsaba ay ka soo tagto guriga hooyadeed si gurigeeda ay u imaado gurigeedana ay u difaacato dabcan gabadhii iyo caruurteedii way soo baxeen gurigeedii la keen marka iyada qaybta hoose deganeed xaaska kalena qaybta kore in la dejiyay ayaa loo sheegay marka kabacdi meesha maxaa yiri marka inta gurigeeda ay joogto isagana mar walba kor ayuu sii soconaayay mar walba kor ayuu sii soconaayay mar walba kor ayuu sii soconaayay iyadana way ka xumaanaysay niyad jab ay dareemaysay
yacni in maxay to maartay nolosha wadaag inay gashay ay dareemaysay qalbi jab ay dareemaysay ugu dambeyntii saygii ayaa wuxuu yiri waxa la gaaray xilligii aan ku soo bari lahaa min yaradaada ayna keen marka guriga marka qaybta sare يعني سانقات ayaa laga dareemay marka laga maqlaay marka saanqaadkaasi marka iyadana mar walba waxay u haysatay inay ahayd xaaskii labaad ugu dambeyntii kora la saaray adiga wax maxay to maartay dumar u egay aragtay way qaracantay joogay ka dhacday way dhacday markaas uu maxay to maartay iyadoo meeshii taala biyo soo qabtay wajiga uga shubay way soo naaxday markaas waxay aragtay marka ninkii fiirisay gadaashiisan waxay ku aragtay marka wan weyn oo meesha taagan marka wankan muxuu ahaay tiri marka hadda wankan waa wixii aad ka maseereysay waayo marka wixii adiga aad ka hinaasay waayo aniga xagga waa ka soo fujin waayo gurigaaga waa ka soo fujin waayo laakiin se taatiko aan kaaga soo fujiyo ayaan cayaar wiire ayaan sameeyay wankan waxaan ugu talagalay adiga iyo ilmaha yar ee dhashay inaan idinku quraamiyo idinku guna duceeyo sidii maxay ahayd maartayna marka laakiin se hadii isaga uu sameyn lahaa ama uu qaylin lahaa ama buuqi lahaa ama uu qaylin maxay ahayd maartayna dacwoon lahaa ama ii sheegay kama soo tagteen madax adeeg un bay ka sii qaadi lahayd Soomaa marka taatikadaas oo isticmaalay gurigeedii orod ugu soo laabatay gurigeedina joogtay noloshoodii quruxda badneeda halkoodii ay ka sii wateen marka darteed marka baraacada ama taatikada oo xaaskaaga aad kula dhaqmaysid iyo farsamooyinka adiga aad isticmaalaysid waa laga maarmaan waana qodobka lixaad qodobka toddobaad ayaa wuxuu yahay hadalka xilliga hawsha sariirta in xaaska la hadlo xilliga hawsha sariirta aad ay muhiim u tahay ka hor iyo kadibba midaana waxay kor u qaadaysaa ziyaadada raaxada ee labada dhinac haddaba waa muhiim xilliga hawsha sariirta in la wada hadlo yani la wada hadlo waxaan ka wadaa in meesha sheeka ay jirto markay hawsha ay dhamaatana sheekada ay sii jirto oo wax aad iyo aad muhiim u ah isla mar ahaantaana kaalin mug leh ka qaadanaya kor u qaadida raaxada lamaanaha isqaba haddaba toddobadaasi arrimood haddii adiga aad samaysid waxaa hubaala inaad gacanta aad ku haysid ama gacanta aad ku dhigtay sirta kor u qaadaysa nolosha lamaanaha isqaba qaybtan saddexaad ee bidhaamiyana maanta halkaasaynu ku soo gabagabeynaynaa waa maxamed cali juuxa oo idin socodsiinayay barnaamijka dhanka kaameradana waxa iga saacidayay Zakariya Yare iyo Yaxya Yare kamaan